tira haween ah oo ka shaqaynayay nadaafadda gobolka Banaadir ayaa dhacdo xanuun leh kala kulmay iyagoo howlo nadaafadeed ka wada xaafadda Miranaayo oo ka tirsan degmada Cabdilcasiis ee gobolka Banaadir waxaana wararku ay sheegayaan in gaariga Soomaalida ay u taqaan nooha uu ku buufiyay haweenkan wax u eg sun kadib markii uu isku horgooyay haweenkan xilli ay ku guda jireen ka shaqaynta bilic soo celinta degmadaasi haweenkan la buufiyay ayaa tir ahaan waxa ay gaarayaan ilaa 14 waxaana la sheegay in gaariga buufiyay uusan lahayn wax taarga ah goobtii uu dhibka ka geystana uu ka baxsaday mid ka mid ah isbitaalada la dhigay dadka dhibaatadu ay soo gaartay ayaan tagay waxaana indhahaygu ay qabteen laba qof oo ka mid ah dadkii dhacdada la kulmay afar ka mid ah haweenkan ayaa jirkooda uu isbedelay xubnahooda qaarna waa ay isku yimaadeen TV-ga Saab ayaa waxaa la hadlay mid ka mid ah ehelada dadka waxyeeladu ay soo gaartay kaasi oo sharaxaya sida dadkan ay wax u soo gaareen kulli horta waa walaxan la yaabo dhacdadan maanta aan arkay oo mid uu koob oo wali aan arag waay waana mid aan aad iyo aad looga xumaa karo marka aan waxaa dhibaato in dad masaakiin oo meel joogo inta baawur waxyaabo sum iyo wax noocaas inta la soo isticmaalo lagu qaaciyo horta waa wax aad u dhib badan haddii la fiirsho maskaxan gabadhan ma dadkii nadaafadda ka qayb qaadanaya kamid ah dadka deegaan dadka oo hadii deegaanka way tahay nadaafadda meesha way kamid tahay waxa soo dhamay shaqo waa ma joogtaa adiga goormay maqashay goormay isku aniga waxaan maqlay iyadoo gabadha horta marka hore iyadoo xanuunsan la keenay xaafadda la keenay xoogaa biyo lagu shishooy waa fiicnaatay ka dambe haddana iyadoo xoogaa fiican iga tagtay waa soo laabay tiri iyadoo haddana hal iirib isbitaal ay taabay gabadha waa gartay imise qof ayaa dhacdadan la kulmay maanta ugu yaraan kulli waxaan tii ku dhacday horta waa banayn 14 qofood ayaa la sheegay hadda laba hadda waatan waa u jeedinba inta kale toon isbitaal kale loo qaaday waxaan leeyahay horta dadka masaakiinta wax walba u baahan yihiin caafimaad iyo wax walba u baahan yihiin waxaan leeyahay on dawladda aan leeyahay dadkan dhibaataysan oo saas u yaalo wax in loo qabto oo ninka leeyahay meel goobo caafimaad la geeyo oo wax walba loo qabto taasaan aan u jeedsanaa ilaa hadda ma jirto cid rasmi ah oo cadeysay in dadkan la sumeeyay iyo in kale hase yeeshee maamulka isbitaalka Hubaal oo dadkan la dhigay ayaa ii sheegay in dawladdu ay kala baxday dadkii kale ee markii hore isbitaalkan la dhigay si loogu dabiibo isbitaalada dawladdu xiriir kala leedahay magaalada Muqdisho ayaa waxa ku soo kordhay muddooyinkan dhacdooyinka ay aadka ula yaabeen dadka waxaana dhawaan jirtay in ido gowracan lagu arkay degmooyinka ku teedsan madaxtooyada Soomaaliya waxaana toddobaadkan dadku ay hadal hayeen haweeney dadka durta cirbad la sheegay inay ku soo qaaday dhiig xambaarsan cudurka halista ah ee AIDS-ka iyo midda maanta la arkay ee aan ka soo sheekeynay maxamed yaxya jiino Saab TV Muqdisho.